magacaygu waxaa la dhahaa xuseen cabdiraxmaan waxaan ahay dhiyooga dhadhaab division taa waa midda hore midda labaad saa laga wada dherigsan yahay waxaa maanta meesha iskugu imaan waa inaan ka hadalno arrinta farabixiska soo maaho iyo go'aanka dawladda ku aadan arrinta farabixiska inaan idin sheego saad ogtiin horta arrintan farabixiska dadkaan faraha gali waa dad mar hore dawladda baan u sheegay waa dad dawladda dembi qaran ka galay mabeen baa mise run dadkan waa dadkii maxkamad la istaajin lahaa oo la xiri lahaa waay mabeen baa mise run marka dhibka mar hore meeshuu ka bilowda waxaa waaye in been la sheegay taas horta waa arrin arrinta labaad cabasho badan baa ka socotaa arrintan oo standard operating procedures dhahay oo sobska iyo maaragtay shuruudaha ay dawladda dhigtay dantan nagu qasabtay ama dawladdu ku qasabtay inay shuruudiyahan adag dhigto waa dhib annaga naga socdo khaasatan soomaalida soomaalida waxay dhahdaa beertaan hor maxaa leh runtaadan baa wax dhibtaa marka waxaan u malaynaya anaga xagga dawladda beentayni baa badatay ma aragtay khaasatan xagga sharciga qaadashada markuu waddanka soomaaliya soo dumay oo walaalahayna soomaali degnaa ay waddanka soo galeen haddii aniga waxaan nahay jecel inaan ku noolaano communitynimo marka dadkii baan hoos soo gashanay marka dad badan baa si qaldan sharciga ku qaatay taa waxaan ka wada dheregsana soo maaho hadda maanta dhadhaab ilaa dad ka badan kun ruux ayaa bannaanka soo istay waxay dhahaan kibaandhahan si qalad baan ku qaadanay bal arrintaa ma idin fudud adinkahay nin dhahay aniga kismaayaan ka imaaday muqdishoan ka imaaday baydhabaan ka imaaday kibaandhahan dawladay si qalad baan ku helay ya oo waraaqii qor kibaandhada iga qaado shalay kibaandhaha yaa u gooyey jiifkaa waraaq u qoray odayaashii baa mare ka noqotay adinkii baa dusha saartay soo maho marka horta inoo maaragta liska qaylimaha horta arrinta inaad fahantaana fiican tan kale arrinta kibaandha marka la bixinaayo waa arrin amni ah national identity card iyo ammaanka wuu isla socdaa qofka hadduu kibaandho qaato uu qof qaldan yahay macnaheedu waxaa waaye waddankaa meeshu rabo ku istaagay macnaheedu waxaa waaye baasboor uu kibaandhahaas ku qaadan adduunka meeshu rabo ku istaagay marka horta waxaa fiican in la fahmo culayska arrinta registrationka ay qaado ama maaragtay qofka oo aqoonsi la siiyo culayska leed inaad fahantina fiican markaa arkaysaan dawladda inay shuruudyo badan dhigayso in maaragtay security meeting isdaba taagan la samaynayo ka soo bilowda ilaa Nairobi ilaa Garissa ilaa meesha ugu hooseeya Dhadhaab ah waa dan baa dad ku qasabtay nin baa mar aan isla joogno isla xamanay MCA-ga abo wuxuu dhaa maqlay arrin fulaan samay hebel buu telefoon soo diray samay dadku ay qaylaan war dadka qaylaan waxay ayaga dantoodu waa la sameeyay samay ha qayliyaane marka marmar waa inaan qasbaysa arrinta inaan samayno annagoo adinka idin dalaynayno ani hadda waxooga waxaa lagu dacadaya markaan meesha kibaandhaha tago inaan waxooga dadka xun aan meesha ka saaro ani waxaan saas u samaynaya waa inaan dadka u dalayo oo dadkii deegaanka iyo waxooda si xaqay ku helaan sifa hadhow markii oo yacni ribood la qoraya maxaa yeele dadka ribood baa la qoraa waqti walba ribood baa la qoraa marka si riboodkii Dhadhaab uu hagaago dadka xun in la qabto way soo maaho taana hadda dad badan baa kugu cadowsanay khaasatan dadka oo danaha shakhsiga danaha ummadda ka hormariyo marka waxaan la hadlaa dadka wiilasha yaryar oo ma aragtay haddii shaqalaan baa iska jirtaa oo nin walba subu arsaaq ku raadsan arsaaqtan waxaa fiican in meelaha xalaasha laga raadsado horta dadkan kibaandha lacagta ka soo qaadanay xaraan wey kulley culamaa meesha joogtaa u malaynaa inta badan dadka kibaandha iska raadsanaya waa dad masaakiin ah ilaahay ribada muxuu xaaraantay ma taqaanaan ribada waxa loo xaaraantay waxaa waaye masaakiinta ay boqoma ka goysaa inta badan quraanku waxa u arkaysaa ilaahay inuu masaakiinta u danaynaa gaalada marka la weydiiyo dadka xun maxaa naarta idin galay maa salakakum fii saqara qaaluu lam nakun min almusalliina walam nakun nudcimu miskiin suuratul xaqad ilaahay muxuu ku leeyahay
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين قرآنك أنت بدل إليه وحكي سؤال عنا مساكين اللي هو نحرسته إن وحلا السيو عرينت الرباط أو دم بيجي صار لغة لعد مقشان ويعني نبي ليها يعني صدق اللح مر أظن كزلي ستيا كخير رونينات ما ركتي ربا كل عضو ربا صار سبب تقدم بيسأيتها إن مساكين لو بقبقوي مركو عن ليه ضدك مخلصين تو مالها wax ka raadsanayo walaalaal wax xalaal raasad aduunka walaga tagay waa iskala maalinle hadda afartan jirta waxa laga yaabaa 20 sano inay ku saartay marka aduunka wax qiimo u leeyahay malaha meeqa uu agood leeyahay meeqa xoolo leeyahay meeqa uu amaanta ka maqan marka waxa leeyahay horta lacagta qaadanaysan waa xaraan caruurtina xaraan ku qoodinina sheefaftan ayaga way maqlaan waan u sheegi arsaaqtina meel kale kana arsaaqti leeyahay way furan tahay mukhalasiin waxaan leeyahay dawladda il dheer bay idinku fiirinaysaa arrintan dawladda muddo dheer bay ka soo shaqeynaysaa adoo aan rabtaa hal week laba week inaad meel fariisisto oo dawlad ka aqli badiso ya dawladda intaas oo bilood bay arrintan yani ay ugu hool jirtay si amniga dadkeeda ay u sugto arrin markay amni soo gaarto waxyaalaha qalamo ictibaariyo ya hebel baa inta ka hadlayo hebel baa saadhayo ma ictibaarin anaga arrin markay amni gaarto maxay amni laan maxaa socon ha marka taa waxay noo keenaysaa arrinta shardiya meesha ku qoran waxa kamid ah qofka inuu dadkiisa dhan la imaado arrintan mar hore idin soo sheego waxaan dhahay been baa noo horreysay runtaayna dambe oo war hebel geel buu iga jiraa war hebel uu iga rafaadsan yahay hebel Uganda buu iga jiraa waa run laakiin been baa ku horreysay sababo markaad waxaa la rabaa inaad ku sabarto runta haddaan ku sheego waxa wax laga bedelayo ma laho hadda macbeen isku dal waxa wax laga bedelayo ma laho waa la fariistay waxa la mukhalasiinta meesha wax ka keenaan inta way qof baa Nairobi laga soo qaaday qof baa baydhabo soo orday iska iman qof baa Kismaayo ka iman hadda nin baa lagu qabtay maalinkii aba qayl lagu qabanay marka la qabto maxaa aniga Kismaayo ka maad labada waalid inta keenad waan ka tuuday labada waalid aniga soo marka waa arrimo badan baa meesha ku hoos qarsoon marka waxa fiican inaan arrintan intaan dadaali karno aan dadaalno komitida waa binaadan waxyaalaha qaar waa la fahmi karaa meesha binaadanimo ka baxsana laakiin shardiga waa si loo dhahay haddii aan rabno maxay cod farax inaan faraha ka saarno walaalihiis oo dhan oo inaan kaano Jiyaleed iyo Nasiibi iyo Cabdiqaadir saf soo galaan hal hadduu maqan yahay itulbi equation taa maxay meesha ka saaraysaa qof ifa ka soo orday ama qof baydhabo diyaarad ka soo qaato oo meelaha libo dabdaro ku soo galay ama meelahan isli laga soo qaaday inuu kibaana laga reebo marka adinka dal idin tahay sooma hadda dantiin hadii laga taliyo ma inay qaylisana fiican marka wax adinka idin dan way political leaders na waa intaas oo maraa ayagana naftoo shir dawladda la galeen حتى MBاش iyo governor markaan wasiirka la firisanay meesha RC ga wayna la joogeen dhiyaasha iyo security ka dhan dawladdan arrintan aad iyo aad bay u fiirinaysaa sirta waan idin xad aniga il dheer baa meesha lagu fiirinaya maxaa yeelay dadka hadda faraa laga saar rabo waa dadku dhow 40 kun dadka hadda faraa qaxooti ku jiro 2016 waxaan 40 kun waxa la sheegay hadda ilaa 10 kun in la yahay oo yaani kaarkii ay renew gareyn ama ay soo raadsanayeen marka waxaan ku qiyaasana ina dad 30 kun oo ruuxa marka 30 kun oo ruux in farahooda laga soo bixiyo waxaan u maleynaa culayska ay wadato waa garanaysaan khaasatan markaan fiirino arrinta amniga nagu wareegsan marka arrinta ilmaha lala imaanayo in la fududeeyo in waxba culays aan keenin haddii mar rabo qof hadduu qof dhinto lama imaan leen haddii aroos la qabso lama imaan leen wardantii ka weyn maxaa loo imaan leeyahay waxoogaa hadda isdhibaa jiraa soo maaho waxaa la rabaa hadda Soomaali baa iska nahay Soomaali waxa waa jid dheer jid gaabka jid gaabna iska rabtaa qodaxyaba qabe Kenyaan kale saas ay nagu xantaan anigu war waag baa banka shaqeyn jiray waxaad arkaysaa nin Soomaali baa imaanay dadkii saf baa lagu jiraa oo lacag baa la qaadan nin Soomaali ku waraana meel baa urdahay iga dhaqsfalaalo yaa u dhihi ay hor baa la marin markuu meesha ka soo baxo irid bankigu istaagashay ku bilaabay warka Soomaaliya dabcigeeda iska xoogo yani khilafnaanta waan u dhalanaa u malan
marka waxaan idin maaragtay igula talin lahaa in dadkii la keeno oo walaalihii la keeno haddii bini'aadan baan nahay wixii halaal ruux ah hal ruux ama qof xanuunsan isbitaal ku jira ICU ku jiro ma la soo qaadi hadduu geel hadduu dhumayo hal wiil oo geel la jiro geel ma la dhumin wax bini'aadanimo waa iska jiraan laakiin arrintan waxaan rabnaa 95% inay saas ku socoto dugoodo markay saan ceeraan waxay dhahaan arrinta hadda ay bilbilaabanaysaa gadaal bay ka bilaaran doontaa horta bal arrinta ha bilaabato wixii kale culayso kale imaada leaderskii way joogaan tala waa muqtaa talada waa iska badan tahay mid banaan iyo mid waxyaalo badan ma iska jira marka hadda bal horta arrinta ha bilaabato wixii culayso soo kordha aragno dawladda hadda ayadana way la socotaa laakiin waxay idin sheegi arrinta strictness mukhallasiin that one will not compromise on that. I am telling you, if you are a broker and you are here, we will not compromise on that. And when we take you to court, when we are taking you to court, marka kootiri ku geynayno qodobahan kootiri ku geynayno qodoba ka fakad doonto because dambiga galayso waa dambi qaran ya dambiga galayso waa dambi qaran Soomaa marka haddaba noloshaada 10 kun shaqo ha u haleen iskaga tag mesh waan ku qabanaynaa evidence waan kuga helaynaa that will take you to court and will win against you taas macnaheedu waxa waay meesha vettinga oo meesha primary u haan doonay lagama ogola qof aan ahayn parentiga iyo caruurtiisa oo roomka soo galay si fiican ma maqshan soo ku celiya qof kale lagama rabo leaderska sida hadda MCH waa imaan karaan hadda MC waqtigaas waqti kulma fadhinayo MP waqti kulma fadhinayo dadoo will allow because ayaga waa leaders dadkii waa soo doorteen wadadan xishmeynayno warasi u socdo way fiirin karaan laakiin raaciyada meesha lagama rabo arrinta vettinga inta meel u ahaanayo vetting waxaan ka rabnay inaan badino ilaa 4 ilaa 5 waxay leeyahay qofka chairman kaanayo waa Dioga marka wuxuu hadda imtixaan baa socdaa Dioga Japala midkan Liboy uu mashquulsan yahay ka dheertu mashquulsan yahay marka wax nafaas leh aniga hadda central bank waa central free DC ka bahaya DC ga sanaftiisu mashquulsan yahay ma gali karo marka hadda waxaan ku bilaabaynaa labo aniga oo dhusu bilaabaynaa taariikh 27 imtixaan ku dhamaan taariikh 27 waxa ka bilaawdo marka ilaa 5 meel ka dhigaynaa marka labada wiigo damba ilaa 5 meel bay noqon doontaa laakiin hadda laba meel baan ku bilaabaynaa dadka maalinkii la fadgareynayo waa 100 bas sababtu waxay tahay waxa jira hal dhaay standard oo yaani qofka bini'aadanka uu sameyn karo vetting waxa la rabaa waxa la badan in su'aalo la weydiiyo qofka la interview gareey documentation la fiiriyo hadda meesha iskaga orod maaho marka maximum waa 100 intuu gaar waa laga yaabaa marka 100 laga ma badin karo maxay waxaan dad oo technical team ajra oo arrintan u fariisanayo ma aragti oo markii decision la gaaray dawladda yaani wuxuu xuseen decision iska gaaray ma waxaan dad baa la form gareey committee ah technical team ajra then they make a decision marka decision waxa la isku raacay in 100 ka badan la fadgareyn karin haddii la fadgareyn taas fitir ay noqonayso because waxaan rabnaa waxa la dhahayo quality data tan kala wax dadka wax sameynaya waa bini'aadan wuxuu muhiimad meesha inay qayliyana laga yaabaa saaki shir baan ku jirnay marka waxa lagu heshiiyey sabti iyo axad inaan sameyn karin sababtuna waxay tahay dadkaan meesha fadhiyo waa dad bini'aadan ah qofkii uu daali inuu nasto waa muhiim khaasatan dadka faraha qaadayo iyo ma aragtay dadka sawirada qaadayo deeadwin shaqadoodu waa shaqo fatiga waa shaqo exercise marka weekend ma shaqay qarbo in dadka inay nastaan rabnaa si ay shaqadii u wanaagsanaato odayga Liboy ba hadal uu ku bilaabaan wuxuu aan jeclaysanin Sheekh Usmaan Ashale wuxuu dhahay xaaji dawara wuxuu dhahay meesha waan fadhinee warka ma wada macnaha ruuxa been sheegi warka hadda odayga been ba sheegi ma dhihi rabi laakiin meel aan ku dhahay ani odayaasha ogood ma laha wad fadhidayna ma jirtaa Muse Yusuf meel odayaasha ogood ma la ku dhimi jirtaa aniga marka meesha waan fadhinee ana arrinta ma maqlan marka vettinga sida loo fariisanayo inaad waxaan rabnaa inaad fahantaan odayaasha agoodda ay meesha vetting ku leeyihiin
markii kuraasta waxaa loo baangeyni vetting committee odayga baa laga soo bilaabay kursi baa loo dhigay ruuxa iyo caruurtiis odayga baa soo marayaan odaygu hadduu soo gudbiyo macnaheeda ninka uu garan markuu soo gudbiyo assistant chief buu soo maray maxaa la dhihi jiray chiefkuu soo maray maxaa la dhihi jiray kan oo CID gu soo maray kan oo niiskuu soo maray maxaa la dhihi jiray kan oo military intelligence soo maray markaa ka dambe buu anigana soo gaaray soo ma fahmin laakiin waxaa laga yaabaa ninka odaya ruuxuu dhahay waan garan haddaan anaga imtixaan ka qaadno imtixaan baan qaadaynaa meesha caruurtaan la keenay qofkaan ka shakino asii caruurtiisuba gaargaar baan imtixaan kala qaadaynaa xaggaa wada istaajinayna xabad maxaa ugu yaraynaa haddii dad walaalo isgaranayna ma jiraa yaa marka meesha waa lagu ceeboobi doonaa marka odayaalow meesha inay weysadeeda ka jabto ma rabii marka waxaa fiican inaan run iska sheegno ta kale dawladda information badan baa haystaa huduma baad buuxisay soomeen huduma soo information kasta baa ku qoran kibaana marka la qoraysay waxaa tahay qabiilkaa wax walba meeshaad ku qortay ma aragtay baasboorka markaa buuxinaysay baas certificate-kaada hadda markaan ID oo qofka loo gooyo ku sugto meesha laguma siinayo ku sugto hadda Nairobi baa loo diray markaa kadib waxaa la fiirina marka wixii informationkii baa la balance garan saad ogtiin 2016 arrinta waa la sameeyay waana la tuuray sababta keenta maxay tahay inay been badan iyo khiyaano badan ku jirtay marka laakiin safarta dawladda diyaar bay u tahay inay idin saacidayso laakiin adinka iska halaynina ruuxii corruption ku aragtaan xaqarinina noo keena hadduu qof corruption sameeyo processka looma istaajinayo asaga la qaban bisfahmayna wax been iyo daacadaad beenana Facebook laga sii daan oo been ah arrinta beento la faafiyo waa khatar wey laakiin wax haddaad qof ku maqasho dawladdaa joogta si sira hoos nooga keen anaga nafteen informationka waan raadsanaynaa we'll get to that information marka been nooma sheegi kartaan marka waxaan idinku la talinay arrintan inaad nala qabataan annaga si daacadnimo dawladdii diyaar bay u tahay inay dadkii Kenyaanka faraha laga saaro dad ayaa waxaa kuwii qaxootiga naftooda ahaa oo kibaanay si qalad ku qaatay naftooda waa looga bixin laba foom baa jirta mid waa blue midna wuu cad yahay marka midka buluuga waa midka qaxootiga looga soo saaray qaxootiga waxay soo marayaan meesha raas mukhallasiintu waan ogahay inaad taageed garanaysaan qaxootiga we'll get to know you wixii muqallis oo dhadhaab joogna telefoonkiis waan haynaa meeshuu degan waan garanaynaa meeshuu shirku galay waan garanaynaa wax naga qarsoon ma laha dawladdu bogta dad badan bay la shaqaystaa yeah the government will deploy a lot of undercover officers in the dab أنا واحد من الكرة نسوا مالي ورطة يدين شيء أفصلنا وشيكتها وتفسير فيري وحالي إنه سردون بدن أو حوسة يعني مجال النداب لو صار درة أو قرصان ينركين أو قرية إلين أو سوق إلين أو مال إلين جوان إنه ولا الكلام اللي جاي بقول كل جيفات قرني أدوك العقبة شقيتها صابو حوير رمح الله شيء وركوا عادي ليه هاي وعاس الشوط وحال اللي ليه يقول وحي حول هالسك نافو كباندانا بروسس كلوما هاللينا هل روح وقلد وضو دولة waxay ku tashatay ninkii qalad oo asaa qabanayna عائلة Soomaalida kibaanda waa lagu dhibaysan yahay hadda bridge-ka markaa marayso saa dadku isku dhow Soomaarka ani ma laano qamiis wataa meesha maray uniformkii baagi ugu jiray kii askari uniformku soo saaray waa kuwan oo special maxal dhaha oo istaago markaasuu dhahay kaar shaqo ma wataa markaasaan dhahay maya kaar shaqo inta ugu tagay markaasuu dhahay uniform ma adalay lagu soo dhiibay ya marka Soomaalida sababta nool oo maaragtay saas u dhacaysana waxa waaye waxyaalo badan baan ugu dhex qarsoon Soomaho hadda dadka lama bixin karo ninka wax sameeynaayo waa nin adig ku eg magacaada wato guriga soo saxda laga yaabo walaalka inuu yahay adeerka u dhalay marka waxaan leeyahay walaalayaalow processka aan support gareyno leaderskii ayagana way ballan qaadeen inay support gareynayaan wixii wax naga halayna aan maaragtay isla qabanno daacayada fara badan iyo propaganda horta meesha dhadhaab propaganda badan baan ku arkay propaganda hal iska yar walaalayaalow dad muslimiin baan nahay waxaan wax uu la sheegayo warsaan baa wax hal iska dhaaf wax macna ma laho marka waxaan arrin iska raqiisa cid maalayso fara laga saaray iska dhamaanayso ma meesha venue intuu ahaan qamiistayna bilaaban waa qamiistii jimcada sabti xad wadana break ma aadina hadan isniinta baa bilaaban ilaa jimcada taariikh 27 wixii ka bilowdana vetting waan gudaweynayna ilaa 5 meel laga dhigi
marka waa intaa ruuxii su'aal qabana shaqada su'aal qaba aye soo warayso requirement su'aal ay sheegay